magacaygu waa Siyaad Mooge Guure nin ka soo jeedo magaaladan Dadaab aasana hotelkan Aqal Heriyo Resort oo ku yaala magaalada Dadaab. So hotelkan marka hore hotel ahaan umaanaan design garaynin. meesha marka hore waxaan ugu talagalnay xarun lagu xidfiyo ama lagu kaydiyo hidaha iyo dhaqanka Soomaalida. nin waxaan ahaa wareegayo shaqadiisa badii wareeg ay tahay. intaan wareegayana meelaha badan ee Soomaalida ay degaan waxaan ku arkay cagafka Soomaalida ay isticmaali jireen oo ay dhaqan u lahaayeen oo markay dadka intay ka guureen ay banaanka iskaga tuurayaan sidii haanti iyo saabkeedii iyo waxyaalaha noocaas oo kale dadka ay ku bedesheen arrimo kale oo modern ah. sida awgeed baa waxaan igu dhacday inaan bal aruuriyo Somali traditionalka weelasha ay u isticmaali jireen. marka sidii baa horta meeshan kugu soo aruuriyo meeshan iskugu keenay meel yar oo marka hore guri yar baan intaan u dhisaan ku dhex sharxay. marka dambe aqligan oo hotel ahaanta ah kulli dadka markay imaadeen arrimay arkeen bay xoogaa arrintan business idea-gan uu ku soo darsamay sanadka markuu ahaa 2017 January yaan aqliga Aqal Heriyo markaasi aan gadaal aan u furnay. marka Aqal Heriyo siday haddaba ka tarjumaysa magaca Aqal Heriyo aqal iyo Heriyo la isku keenaa. aqal waxa way guriga Soomaaliga ay degi jireen. Heriyo waxa way cooska uu ka samaysan yahay. marka waa Aqal Heriyo saasoo magac ku imaaday. astaan baan ooga dhigno hadda markaad albaabka ka soo gasho aqalka Soomaaliga caadigeed baan horta albaabka kor ka sawirnay. loogooda naftigeeda waa Aqal Heriyo waa guriga Soomaalida. marka idea-ga markuu sii durqay qayb yaroo waxaan sameynaa marka jiif ah. marka jiifka waxaan ka dhignay guri Soomaali sidaad gadaashayda u arkaysiin. laakiin uurka waan ka habayno xogaago waa yar naashnay oo AC iyo xogaa baan ka dhignay. laakiin guriga cooskiisa iyo waxaan u daynay sidii dhaqanka aheedba loogu talagalay iyo xarkihii iyo waxyaalihii loogu talagalay. waxaana nagu sii dhiiriyay dadkii oo arrimihii aad u xiiseeyeen. marka in yar baa wax kale ugu darnay oo qaybo kala duwan ugu darnay sida hadda dhinaca dabaasha xoolihii Soomaalida oo idinna wixii geeliya arigana meesha waan ku xanaanaynaa oo waxyaalihii ka soo baxo caanahooda iyo hilibkoodana meeshii baan ku gadnaa. marka Aqal Heriyo waxaa lafdhabar u ah dhaqanka Soomaalida cuntadeeda entertainmentkeeda xagga ciyaaraha iyo halkiga ah dhaqanka Soomaalida. kulli hadda weelasha hata cuntada lagu cuno waxaan ka dhignaa inay bal ka soo joodaan dhaqanka Soomaalida. marka waa meel yar oo dhaqanka Soomaalida aan ku kaydinayna aanan ku xidfinayna. waxaan asaasnay Aqal Heriyo waxaan furnay January 2017 2017. hadda waxaan u malaynay waxay u sii socotaa 10 sano. laakiin intaasi waa MC fidayso markasta qayb aan ku daraynay. hadda waxaa ka mid ah qaybabka aan ku darnay meelaha conference ama aroosyaha lagu sameeya sida hadda ku sheegay meel ilmaha ay ku ciyaaraan dabaasha. waxaa ka mid ah meelaha hidiya dhaqanka dadka ay ugu imaadaan. waxaa kaloo ka mid ah ayadan oo hadda ay hadda caan ku noqonaysaa inay u noqoto meelaha also xawayaanaha juurka joogaan la keena especially hadda markay drought-ka iyo meelahan abaarta badatay duurjoogti baa waxay ku dhacday meelo badan oo iyo dadkii oo deegaanka badiyeen. iyo hadda jeer waxaa naloo keenaa marka duurjoog yaa naloo keenaa anagoo ka haysanaa sharci Kenya Wildlife. duurjoogna meesha waa ku haynaa sida hadda gorayada. mar hataa waxaa naloo keenay shabeelka Kenya Wildlife adaa u qaadatay cawleyda. arrimaha yarna waan ku haynaa meesha iyadan waxaan ka dhignay animal sanctuary ahaanoo oon ayagan ku badbaadinaa. sida hadda horta waa iska Aqal Heriyo waa iska unique meel iska iska aan caadi ahayn waxyaalo badan oo hadda ay uga duwan tahay jirta beecshada dadka ay sameeyaan.
laakiin sidaan sheegay hoteelka iyo restaurantka iyo waxa way la mid tahay, laakiin waxa ugu weyn ay maaragtay bulshada ku soo korisay si haddaad ogtihiin Dadaab waxaa ku weegaarsan xarooyin qaxooti ah oo maaragtay qaxootigaasoo maaragtay dhalinyaro badan ay maaragtay joogaan oo dadkaasna ay fursad u haynin meelo badan ay maaragtay ku damaashaan inay haysanin. marka waxaa horta aad meesha ugu badan oo popular oo dadka ay aad u xiisi geliyaan dhalinyarada si ay maaragtay ugu soo banaanbaxaan ay ugu soo maaragtay entertainment ugu imaadaan. aad bay midda ugu badan tahay bulshada. waxay kale ku soo kordhisay inay dadka dareemaan meel maaragtay u ololeynayso Soomaalida dhaqankeeda oo dad badan ay noo keenaan dad waxaa jira xiflad u lah inay qoraan weelasha Soomaalida, hooyooyinka inay sameeyaan dufuladii iyo waxyaalihii dhaqanka. dadkaasna waxaan u sameynay suuq yaroo maaragtay wixii ay soo sameeyaan ay anaga noo keenaan. dad badan oo arrimaha xiiseeyaan ama dibadda iyo waddanka waxay joogaan ayagana meel waxay ka helaan alaabta ay ka helaan oo ka gadna. waxaa kaloo meesha ku jira Dadaab hay'ado badan baa degan. hay'adahaasna waxay ku haastaan adeegyo fara badan oo xagga sida conference-ka, sida team building-ka, arrimahaas ayada ku haastaan. marka magaalada waxay ku soo kordhisay arrimo maaragtay aan marka hore loo haysanin oo maaragtay dadka ay aad u xiiseeyaan sida hadda hidaha dhaqanka. waan ayagana waan u hagaajinaa dadka xiiseeyaan oo maaragtay waan u sameynaa. laakiin midda noogu weyn waxaa waayay waqtiyaha ciid oo kale dad badan baa maaragtay noo soo banaanbaxaan dhalinyarada meesha maaragtay oo u imaadaan usoo maaragtay celebration iyo waxaan u imaadaan. marka arrimahaas oo dhan bay aqal hiro kala shaqaysaa dadka. dad badan oo waxaa jira ayaga nagu xiran oo dibadaha ka imaadaan oo arrimaha xiiseeyaan. dadka midoo aad u xiiseeyaan dhaqanka iyo hidaha Soomaalida meeshan ay aad u imaadaan. arrimo badan oo waxaa jiraan dadka ay ka gaabiyeen oo maaragtay bulshada ay u baahan inay maaragtay loo qabta sida hadda beecsharadan kulli beecshara ahaan bay hadda u socotaa. laakiin markaas fiiriso waxay ayadana qayb ka qaadanaysaa baahi weyn oo dadka ay u qabaan. marka Soomaalidan waxay badi ku badan tahay hal shay oo hal qof ay iskugu imaadaan ay wada sameeyaan. beecshirada ay sameeyaan aad bay iskugu dhow yihiin. marka dadka oo investor-ga ama dadka maaragtay ka soo joogaan deegaanada waxaan ugu baaqi lahaa inay ayagana u soo noqdaan oo wixii maaragtay aqligooda ay keenaan oo weliba ay fiiriyaan arrimaha dhalinyarada ay xiiseynayaan. waa arrimo weyn oo bulshada maaragtay wax badan uga soo taraysa. waxaa hadda ka mid ah dhalinyaraha bariha innovation badan bay sameeyaan meel ay maaragtay lagu incubate gareeyo arrimaha idea ay sameeyaan ay maaragtay ayagana ay maaragtay wax ka soo saari karaan. marka wixii intii hal shay wada la sameyn lahaa waxaa fiican in wixii la kala duduwo laakiin wixii haddana ay connection leeyihiin si ay u wada faa'iidaan. dalkayna waa iska reer guuraa bay iska aheen bariyahan awaarihii oo fara bateen arrimihii way iska adkaadeen. badi magaala la soo galay shaqo abuur ma laha. marka dadka oo hadduu ilaahay maaragtay wax siiyey waxaa fiican inay dadka ay u soo noqdaan oo maaragtay sometimes business ma aha profit keliya laakiin inay u samraan waxyaalaha noocan oo kale ah si maaragtay ugu daneeyaan bulshooyinka Soomaaliyeed meeshay joogaan.